السلام عليكم soo dhawaad saaxiibayaal maanta waxaan qaadan doonaa cashar ku saabsan work and job shaqooyinka cashar ku saabsan shaqada ayaanu qaadan doonaa marka work and job mara toos ayaanu gelaynaa ereyga ugu horreeya wuxuu noqonayaa dismiss fire or sack oo ah caydhin ama erid shaqada qofka in laga eriyo maxaa loo yaqaanaa maxay waa dismiss fire or sack saddexdan eri waa isku micno yani midkaas isticmaashaaba waa isku mid weeye marka macnuhu ay noqonayso caydhin ama eryid in shaqadii qofka laga eriyo in shaqadii qofka laga diro taas qofkii inuu shaqadii ka tago taas ayaa loo yaqaana maxay dismiss or fire or sack marka waxaa lagu order to leave amar inaad ku baxdo send away in lagaa diro dismiss from the employment in shaqadii lagaa dismiss gareeyo in shaqadii lagaa eriyo lagaa cayriyo ayaa loo yaqaanaa dismiss ama fire ama sack saddexda eri waa isku micno mid kaa tuutan isticmaali karta marka to remove a person from a position of employment qofka in laga saaro positionkii shaqada booskuu ka shaqeynayay shaqada in laga saaro waxaa loo yaqaanaa dismiss sack or fire saddexdaas markaa isku micno tusaale they sacked her for being late waxay ku eryadeen habsankeeda way habsaan badan tahay dib u dhicida ayay ku eryadeen then they sacked her for being late in habsan badan tahay baa lagu cayriyey oo lagu eryaday tusaalaha labaad waxa weye he got a sacked from his last job shaqadiisa ugu dambeeyey waa laga cayriyay ama waa laga eryaday shaqadiisa ugu dambeysay they sacked her for being late he got sacked from his last job way erigana waa maxay redundancy waa shaqo ka dhimis waa maxay shaqo ka dhimis the state of being not or no longer needed or useful yani waxa weeyaan waa inaanan loo baahnayn ama aan waxtar badan sii lahaynin yani taasintiniska sare yani maahan qofka kuma salaysan laakiin waxa shay oo kale ayuu ku salaysan yahay inaanu yani shaqadiisa tusaale sida mashiin oo kale shaqadiisii badni aan loo baahnayn ama aanu hadda wax ka dambaysa yani useful hayn mid waxtar leh marka the state of being no longer employment because there is no more work available or costs tan shaqo ka dhimista waxaa loo eegayaa qofka marka shaqooyinka ay yaraadaan ama lacagii lagu bixinaya ay yaraadaan in shaqaalihii la dhimo oo la yareeyo because of maxay no more work available shaqooyin badan oo yacni xaadir ma jiraan ama available or ama costs ama qiimaha lacagta wixii la bixinaya inay yaraadeen sidaa aawadeedna shaqaalaha la yareeyo taas ayaa loo yaqaanaa redundancy baa loo yaqaanaa marka waa state of being no longer in employment because there is no more work available or cost lacag ama shaqo intaas yani badan oo hadda xaadir ma jirto because saad aawadeed baa loo yareynayaa ama lagu sameynayaa demis in la yareeyo shaqaalaha tusaale The restructuring is expected to result in the redundancy of several hundreds of workers. dib u dhis ama dib u habeyntu waxaa la filayaa inuu natiijeeyo redundancy in shaqo dhimis lagu sameeyo of several hundred workers yani boqolaal shaqaale in lagu sameeyo yani shaqo ka dhimis ayuu keenayaa dib u habeyntaas waxay keenaysaa in boqolaal shaqaale lagu sameeyo shaqo ka dhimis marka redundancy waa maxay waa shaqo ka dhimis shaqada ka dhimistaas marka qofkii laga eryanaya maaha tii maaha dismiss ama fire ama sack ahayd maaha laakiin waa maxay waa because of something qof in yani marka loo eego meeshii laga shaqeynayay in lacagteedii yaraatay ama yani shaqo badan hadda xaadir aanaysan jirin saa dadkii marka loo yareeyo taas ayaa loo yaqaan maxay redundancy waa erigana waa resign or ama step down iscasilid iscasilid resign step down iscasilid waa voluntary leave a job or office in xafiis looga baxo ama shaqo looga tago si voluntary si yani xorriyad leh qofka inuu ka baxo waa qofku isagaas casila isagana iskaga taga marka voluntary maxaa la yidhahdaa leave a job or office inuu qofka xafiis ama goobta shaqada
oo si voluntary ah si macnaha xorriyad leh oo qofku uga baxo withdraw or resign from important position or office xafiiska ama goobta shaqada in laga baxo oo laga tago baa loo yaqaanaa maxay resign or ama step down way. Tusaale, if you don't like the job you are always free to resign. haddaana shaqada jeclayn yani waxaad xor u tahay ood yani xorriyad u haysataa inaad casisho. If you don't like the job you are always free to resign. inaad casisho xaq baad u leedahay haddaana shaqada ku qanacsanin. taas kale weeye. marka resign or step down waa laba ereygoon isku mid ah oo isku micnaa iscasilid weeye macnaheeguna iscasilid. waa colleague oo maxay waa saaxiibo laakiin saaxiibadan waa ka duwan yihiin kuwa kale friendska waa ka duwan yihiin. marka kuwan waxa weeye dadka meel kala shaqaysaan goob kala shaqaysaan ama macallimiin aad watiin ama shirkadaad kala shaqaysaan ama meel aad yani hawlkooda qabataan shaqo aad wada qabataan baa loo yaqaanaa kuwaad ku midoodeen baa loo yaqaanaa colleague waa saaxiib. marka person who work with you qofka kula shaqeynaya profession or business qofka ganacsi ama xirfad ama qofka ka shaqeynaya kula shaqeynaya waxa loo yaqaanaa colleague. He's a my colleague baa la he's a my colleague. other people who work with you dadka kale adiga kula shaqeeya weeye macnaha dadka adiga kale kula shaqeeya goobta shaqada kula jooga baa loo yaqaanaa maxay colleague. way tusaale a colleague is someone you work with that your job waa qofka shaqadaada aad kula shaqeyso yani aad kula shaqeeya. tusaale, when you are a teacher marka tahay macallin the other teachers are your colleagues. macallimiinta kale waa maxay waa asxaabta waa saaxiibada aad meel kala shaqeysaan. taas loo yaqaanaa marka way employer waa loo shaqeeya qofka loo shaqeeyo ama shirkadda loo shaqeeyo baa loo yaqaanaa employer. shirkad ama qof ha noqoto labada wixii loo shaqeynaya marka baa loo yaqaanaa employer. employee waa maxay waa shaqaaliye. marka person or organization that employs people waa qof ama waa shirkad taasoo shaqaaleysiisa dadka. person or organization that employs people waa shirkad ama waa qof shaqaaleysiya dadka. the person or company ama qofka ama shirkadda that provides siisa job shaqada waa kuwa shaqada bixiya. marka boss u noqon karaa yani qof u noqon karaa shirkad u noqon karaa wax shaqaaleysiya loo shaqeynaya loo yaqaanaa employer. tusaale, an example of employer is a construction company that hires laborers and masons and plumbers to build the house. yani shirkaddu markay shaqaaleysiiso kuwan oo dhan yani shirkadda dhismaha markay shaqaaleysiiso kuwan shaqaalooyinka noocan oo kale baa shirkadda loo yaqaanaa maxay employer baa loo yaqaanaa maxay employer.